labadan muxsin oo ku kala sugan Mareykanka iyo UK ayaa bulshada taagta daran ee ku kala nool magaalada Ceelbu iyo nawaaxigeeda waxay ugu soo deeqeen booyada biyo ah oo markaas ay ugu talagaleen inay xilliga adag haatan ku dhaafaan waxaana booyadahaasi labadaasi muxsin uga wakiil ahaa oo soo gaarsiiyay maanta magaalada Ceelbu Maxamuud Yuusuf Ali Ciise waxaana markaasi uu maanta ku wareejiyay maayirka degmada Ceelbu Maxamed Axmed Cali Salaad iyo odayaasha iyo waxgaradka magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaanu joognaa Ceelbu degmada Ceelbu halkan waxaanu joognaa waqti baa dhacay abaaro iyo jilaal baa jira ilaahay baa saara oo loola cabanaya halka waxaanu joognaa booyadahan dabadayda taagan inaanu dadka masaakiinta oo jooga magaalada iyo hareeraheeda in loo dhaamiyo lacagtaana waxa soo dirsaday wala jaaliyada oo ah Ingiriiska iyo kala joogta iyo Mareykan markay arkeen in waqtigu adag yahay oo hadii buu ku reeyay ama qayla dhalaan Ceelbu iyo ka baxaysa ama waqtigu iska adag waxay soo direen booyada iyo wax lacag yar bay u soo direen dadka walaalahooda oo baahan waxa weeye booyadaha waa kuwa dabadee taagan waa fayskii u horeeyay baan hadda bilaabaynaa waa laba booyadood haddii kuwa yaryar loo dhigana 8 bay noqonayaan haddii kalena waxa weeye waa booyad waa 5 booyad bay la isugu celin karaa marka tan weyn xaggeeda loo raaco waxa weeye iyaguna insha Allah waxaan leenahay dadka walaalahooda oo soo gargaareen meesha ka soo saareen ilaahay awad khayr qaba ilaahu u geliyo kinta walaalahooda oo deegaanka qayladii jabkii ay arkeen ay u soo dirsadeen waa ku mahadsan yihiin ninkii wax yar ku siiya wax badan ku siiya 5 booyadood waxay ka dhigan yihiin hadda maanta 500 oo booyadood bay ka dhigan yihiin dad aan laga yaabo aan tiinka soo dhaansan karin ama yaa xaaladooda ay tahay way sugaysay in ay maanta wax weyn u geliyaan waa ka gudoonay waana ugu ducaynay khayr Allah ugu bedelo odayaasha ka dambeeyay nimanka walaalaha ah waxaan filayaa waa laba nin midna Ingiriiska joogo midna Mareykan joogo oo lacagaha la soo baxay 5 booyadood ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka ha ugu daro ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo ilaahay ha uga yeelo sadaqadii maalkooda awlaadooda naftooda ila xiftiisa ilaahay ha uga yeelo tii naarta maaragtay gaashaan uga noqoto ilaahay ha uga yeelo sadaqal maqbuula ilaahay uga yeelo oo ducaynaynaa sida laga dhawaajiyay deeg hadda waxa iska jira xilli jilaal lagu jira biya yaraan baa jirta oo waxa weeyaan sida odayaashu ay sheegeen waxa weeyaan dadka masaakiinta ah booyadleyda ayaa awalba maaragtay wax u shubi jiray iyagoo aan lacagba ka qaadin ama magaalada ha noqoto ama miyiga. Alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waxa weeye biyo dhaamiskan la keenay oo dadka walaalaha ay keeneen anana wixii naloo ku dhiibay waa gaarsiinayna maatadii naloo ku dhiibay sidaas aanu u gaarsiinayna annagoo ana walba wax qaadan baan doon u dhaamin jiray bilaash ku shubi jiray annagu duruuf ayaga u maamuli jiray wixii deeqo la siiyana waa gaarsiinayna kuwa keenana waa ku mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum warahmatullaahi. intaana magaalada Ceelbu koonaheedii waxaanu halkan ugu qaybinayaa booyado sida odayaasha hore sheegeen dadka masaakiinta oo danyarta loo dhaawinayo si aan loo gaari karo oo loo kala dhigto ayaa loo gaarsiinayaa ma wada gaari karaan oo waxaan gaari karo ma dadku badan yahay laakiin sabab sidii loo kala dhigto insha Allah billaah kariim baan rabaa inaan gaarsiino qolada soo baxsatana u ducaynaynaa ay khayr ka siiyo ajar iyo Allah ka siiyo taasaan u soo ducaynaynaa bismillaah sidoo kale dadkii maanta biyahaasi ka faa'iideystay oo loo shubay oo taagta darnaa ee ku sugan degmada Ceelbu ayaa markaas u mahad celiyay dadkii muxsiniinta ahaa ee biyaha kan ugu soo tabaruray
dadka biyaha noogu soo tabarucay khayr allaha siiyo waxoodana wax allaha ka dheesho barakana allaha siiyo intee fasta lagu sheegay maanta saddex foosta la ii shubay aye biyaha hore ma haysatay waa yar baa iigu jiray aad ma أنا إلهي يقول إن أنا ذكر لسه بحبيها يانا الله قاعد فيه يا intee biyaha lagu sheegay maanta in lag ولا هو لا فوسط ذكر كنا هي قفطة يا inuu ka aqbal هاي رجل دبيار نوكرين نبدي عنا كبده نبدي عنا عبه نبدي عنا سميست نبدي وحرام بانو إلهي يقبرين الله بركة وأنا لا سكرين وأيان لا سكرين بانو إلهي يقبرين اللهم صل على محمد waxay intii xaaladda jiilaalka iyo abaartu iyo weliba sixir bararka baahsan oo ka jiray degmadani ceelba ee gobolka Sanaag ayaa biyahani maanta loo qaybiyay waxay noqonayaan biyihii ugu horeeyay ee soo gaara intii xaaladan abaareed ee haatan lagu jiro ay haysatay bulshada ku nool deegaankani gobolka Sanaag gaar ahaan degmada ceelbu iyo nawaaxigeeda waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada ceelbu ee gobolka Sanaag